wanaagsan ku soo dhowaada qaybta lixaad sheekada xiisaha badan dhimashaan ka xiga ah inaan dib kuu soo jeclaado. sheekadan waxaa qoray daalac daarshood waxaan idinla socodsiin doonaa anigoo ah gacal ayman. sheekadan waxaana maalin walba jimcaha ka daalacan kartaa janalka youtube-kan ku leeyahay ee gacal ayman. qaybta lixaad ee sheekada ayaana ku bilaabanaysa sida tan. anisa weli kamaysan quusan dhanka ridwaan, inkastoo iyada loo muujiyey inaan la rabin oo lagu daadiyey. haddana sida ay jirto, haddii uu jaceylku hayo laabta ayaa ku ololaysa, holac ayaana kugu shidma. nafta ku siin mayso inaad aragto nafaad jeceshahay oo qof kale si dhibyari ah kula wareego. jaceylku waa halis, marna waa macaan marna waa qaraar. haddii uu kaa sii jeesto qofkuusan ku rabin waa halis. jaceylkuu macaan badan yahay sidii malabka, laakiin waa markii si dhib ah lagula wado xiriirka, dadkuna daacad isku yihiin, meeshanu aysan ka marnayn qadarin iyo ixtiraam. casmi oo ah xaaska ridwaan waxay samaysay arrin laga xumaado. waxay soo karaysatay niman caraba. waxay tidhi ha laga takhalluso ama ha la afduubto gabadhan, waayo dumarka soomaalida yeman ku nool xuquuq bini'aadan ma helaan. waxaa la kulmaan xadgudubyo kala duwan har iyo habeen. casmi waxay soo adeegsatay rag dadka dila. xilli habeen anis oo jidka maraysa ayaa gacanta lagu dhigay, waxaana gacanta ku dhigay raggii soo karaysatay xaaska ridwaan. casmi uma sheegin qorshahan cadownimada ninkeeda ridwaan. intaan oo dhan casmi waxay u samaynaysaa maseer, waayo guurka kadib casmi ninkeeda si dhaba ayay u jeclaatay. maseer haddii uu jiro, sida caadada maskaxda bini'aadamka ma xakamaysna, inta badan si qaldan ayay u shaqaysaa. inkastoo ay jiraan dumar maseerkooda farsamo ku daro oo maskaxdoodu deggan tahay, ku dadaala siday nimankooda ku kasban lahaayeen. anise goob waxaa la geeyey cabsi badan oo aan lahayn qof gurmad ah. habeenkii oo dhan dilii kufsi ayaa lagu waday. markii ay danahooda ka dhammaysteen, caloosha ayay ka geliyeen midi amba toorrey. anise haddii ay qayliso wax maqlaya ma lahan, wayna dhiig baxaysaa. kuwa carabta ee sidaas samaynaya anisa isma dhahin way sii noolaan doontaa. goobta anisa lagu waxyeelayay waa goob ay ku badan yihiin eeyaha, waana eeyo dadka cuna. intaas waxaa u sii dheer anisa oo dhiig baxaysa, dhaawac adagna uu ku yaalo caloosha. xaaladdeeda waxay noqotaa halis. anisa allaah ayay barisay oo way ducaysatay in ilaahay ka saaro goobtan aan oolin naxariista. intaysan helin gurmad, anisa waxay ku dadaalaysay sidii iskaga caabin lahayd eeyaha ku soo shamuumay. dhan kasta waxaa ka yeeraya dhawaqa eeyaha. anisa marba mar ka dambaysa way sii tabardhigaysaa, awooddeeda ayaana sii yaraanaysa. ciidamo ka tirsan dalka yeman oo baadigoob ugu jira tuugo wax soo dhacay kana raadinaya goobta anisa dhaawac ku tahay, ayay ciidamada arkeen gabadhan soomaaliyeed oo dhaawac halisa ku yaallo, ayna ku hareersan yihiin eeyo dad cuna. ciidamada xabada ayay kor u rideen si ay eeyaha u kala eryaan, laakiin anis waxay tiri kuwan way ku dili rabaan. ciidamada ayaana goobta si degdeg ah uga qaaday dhaawac anisa, waxaana la geeyey isbitaal. waxaana daaweeyey oo qarashkeeda isku xil saaray inuu bixinayo askari ka mid ahaa ciidamada yeman. anisa markaan xaaladdeeda way ka soo yararaynaysaa, si fiican ayayna u soo kabsanaysaa. askarigii bixiya lacagta anisa lagu daweynayey ayaa markaan qorsho kale la yimid. wuxuu yidhi anise aniga ayaa soo helay kana soo badbaadiyey dhimasho, waa inaan guursadaa haddii si fiican u caafimaado. waa yaab anisa, maxaa daba dhigay musiibooyinkan iyo rafaadka nolosha? anisa way ka diiday guurka ninkan askariga ah. wuxuu yidhi qasab ayaa naagteeda ku noqonaysaa. ugu dambayn anisa waxay ka soo booday derbiga isbitaalka xilli habeena, waxayna soo gaartay mid ka mid a xeryaha qaxootiga ay hore u degneed. dhanka kale nimanka carabta ee la karaystay waxay warqad hambaryaa u soo direen casmi oo ah anisa inay dileen. casmi markii shirqoolkeeda markay maqashay geerida anisa waxaa ka fuqay ootin ku taagneed, waxayna heshay leer ay ku nafisto. waa sida iyada aaminsan tahay. anise ma oga shirqoolkan waxa ka dambeeyo. waxay aaminsan tahay in ragga sidaan u galay ay ahaayeen tuugo mar kasta dhib ku haya dumarka soomaalida. waa gabar iska daacada. jaceylka ayaa indha tiray, waxaana dalkeeda hooyo ka soo waday
waa inay hesho farxadda jaceylkeeda, laakiin abaalkeeda wuxuu noqday murugo iyo dhibaato aan dhammaad lahayn. Anise waxay go'aansatay in kulankeedii ugu dambeeyey la qaadato Ridwaan. Haddii uu ka diido, kadib ay u taariibto Sacuudiga, kadibna isku dhiibto kuwa tarxiilka, sidaasina ay dib ugula midowdo hooyadeed oo iyana la soo furay, keligeedna meel ku nool magaalada Muqdishona ku sugan. Anise markaan waxay balmisay Ridwaan, inkastoo aysan haysan dhar qurux badan oo ay ku libisato ay ku soo jiidato Ridwaan. Waxaa la gaaray xilligii ballanta. Ridwaan wuu soo daahay maadaama uusan tixgelin u hayn jaceylkiisii hore. Ugu dambeyn goobta ayuu soo gaaray, waxaana dhex martay sheekadan. Anise ayaana ku bilowday hadalka. Deer roob hilaaciyo, indhaha doog u muuqdo, naftu daawanayso, waan kugu dulmeeree, duubduub wax iila qabo. Ridwaan ayaa ku jawaabay, deeq kuuma haye, ruux ku diidana waa laga danaystaa, dadka kaama doorbidin, kuma daneeyee, waxba ha igu daaline, dadayo da'aaday, iga duruq walaale. Anise ayaa ina tiri, danteedii ma daayicin, debna kugumaan shidin, ha yeeshee dawo iyo dookh, damac baa igalayo, nafteeda ku dalabtee, duuduub wax iila qabo. Waxaa loogu jawaabay, durdur roob da'aaya, inaad dusha ka eegtiyo, damac ayuu ku qaadine, dadaal beena ha isbadin, waxba ha igu daaline, daydayo da'aaday, iga duruq walaale. Anisoon quusan ayaa haddana tiri, dugsi dhaxanta celiyo, derbi aan dumayn noqo, dooq laygu kaa daray, inaad idaryeeshaan kaaga doortee, duubduub wax iila qabo. Ridwaan ayaa ku jawaabay, dugsi kuuma noqdee oo dabeel kaama celiye, dariqina kuguma jeclaan karo, waxba ha igu daaline, daydayo da'aaday, iga duruq walaale. Anise weli calaacalka ayuu wadaa, waxayna tiri, daawo jecel dukaan ma leh, cirbad la isku duray iyo wax dabiiba lama helin, jaceylkan idooxdoo iga degay dareemaha, dawadiisii baa tahay, duuduub wax ila qabo. Waxaa mar kale loogu jawaabay, jaceyl waa iska dayno, waxaan daadaheeyaba dariiq dab naar iyo igu daray dabeelaha, dib ugu laaba maayee, waxba ha iigu daaline, daydayo da'aaday, iga duruq walaale. Anise markaan quus ayay joogta, waxayna tiri, damin kuuma dhigayo, dab naara kuuma quuree, duur ha iigu daynine, waa kugu dulmeeraystee, duuduub wax ila qabo. Sheekada sida isugu dhiidhiibayaan waa mid aad u dayran. Anise calaacalkeeda looma jixin, alla ninku beer adka ah oo muxuu sidaanoo dhan gabadha ugu gelayaa. Sheekada qaybta 7 xiise gaara ayay leedahay. Casmi Ridwaan talow isku dhici doonaan mise isfuri doonaan? Ridwaan arjim uu qoran doonaa? Anise ma gaari doontaa Anise Sacuudiga? Maxaa dhici doona? sheekadana waa mid aad u xiiso badan. La soco qaybta 7 si sheekadan aad u heshana subscribe saar channelka YouTube-ka ee Gacal Ayman.